marka xeerka anigu waan bilowgiiba waan taageersanaa waxaan u bixiyey caano daatayba dabadood la qabay xeerkan wuxuu badbaadinayaa inay dalka doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo haddii xeerkaa uu madaxweynuhu saddexdii doorashaba isagaa gacantiisa ku dilay ee sanadkan uu yidhi waan qabanayaa hadduu xeerkaa gacantiisa ku dilana somalilan ma jirto doorasho dambe oo nabad ah oo la isla ogol yahay oo ka dhacaysa golaha guurtida maxaad u soo jeedinaysaa oo ayuu ku xoorkeen hor yaala imka iyo gudoomiye Salebaan waxaan u soo jeedinayaa inay xeerkan isdhaafiyaan oo miiska madaxweynaha u gudbiyaan madaxweynahana waxaan kula talin lahaa talama qaatee inuu saxeexo xeerkan haddii uu saxeexana waxaa dhammaaday bay ka dhigan tahay khilaafkii somalilan ka jiray ee siyaasiga ahaa wuu dhammaaday wey wixii dambe wuxuu noqonayaa miiska komishanka doorashooyinka iyo sidii timeka wakhtiga looga wada hadli lahaa wakhtiga oo keliya inagu hadhaya khilaafkii la isku haystayna wuu dhammaaday waa ragga intaa diidan ee ummaddan kitaabka u mareeya kitaabka baallaha gooyey waxaan aad anigu hambalyaynayaa cali xaamid oo runtii markan afartan meesha isu joogjoogay isaaq ee iyagu is haysta ee reeraha iyo baalaha isu haysta intuu ka dhex qaatay isagu si dhiiran oo geesinimo la u mariyey kuwa rifayana waxaan leeyahay waar wuu hagaagsan yahay daaya ninkaas halkaas la maray mujaahid cali guray haddaan hal su'aal ku weydiiyo waynu la soconnaa xaaladdan siyaasadeed ee cakiran oo waddanku ku jiro adiguna waxaad shaacisay inaad urur siyaasadeed furatay adigiina hadda waxaad taagan tahay hal la ansixiyo oo hal la dedejiyo si xaaladda dalka uga baxo ururadiinan la furay ayay warwarka ugu badanna dadka ka qabaan bal halkay iska qabanayaan doorashana ha la galo khilaafkana ha laga baxo ururna waan furanayaa jeclo anigu horta urur iyo xisbi iyo kursiga madaxweynuhu ku fadhiyo intaba waxay gala qaalisan dhiigga dadkayga markaan dib u joogsaday waxay ahayd markaan arkay in doorashadii dambe ee golayaasha deegaanka laga soo hormarinayo doorashadii ka horreysay ee madaxtooyada doorashadaana in badan baan wax ka qoray waxaanan sheegay in aanay ka qabsoomayn dalka horena uga qabsoomin haddana ka qabsoomayn doorasho aan la isla oggolayn markaan arkay inuu madaxweynuhu dabada ka riixayo doorasho aan la isla oggolayn oo aan hubo haddii uu dhaqaajiyo in dhiigga shacbigaygu ku daadanayo dadkaygu oo aan sanaaduuqda korkooda xabaddu ka bilaabmi doonto markaan arkay inaan u xalaaleeyo dhiigga dadka waan diiday waxaanan ka doortay wixii aan ku waayaye in aanan aqbalin anigu waxaan taageersanaa oo cadaaladna ahayd labada doorasho way kala horreeyeen ta madaxweynaha horreysay inta madaxweynaha la soo hormariyaan ururka u samaystay oo dabeedna mas-uuliyadda doorashada dambe waxaa yeelan lahaa madaxweynaha ku soo baxa dee doorashada madaxtooyada soo maaha haddii doorashada madaxweynuhu soo horrayn lahay madaxweynahaasina musabixiba muu noqdeene cabdiraxmaan ciruu noqon lahaa marka waxaan islahaa jaaniskaa ka faa'iidayso inuu madaxweynaha iska tago ka dambe ay yimaadaana wax badan buu bedeliye halkaa dee ururka oo doorashada madaxtooyadana waan bareero waxaan raacsanaa cabdiraxmaan haddase ganacsatadan warata waa kaba ninka uga lexajeclo badan somalilan afartan ugu lacagta badan dalkaba ee inoogu daaraha dhaadheer waa kuma ninka halkan jooga ee golo ah ee baarlamaan ah ee uga lexajeclo badan dalkan soo jeedintan ay keeneen annagu kumaanaan talagelin anigu kuma talagelin kulliba waxaan ku talagalay ta madaxweyne soo horreysa haddii kale aan ka hadho oo dabeedna halkaa xabadda uu ka bilaabmo gacan libaax iyo maxamuud haybe dabeedna halkaa layskala baxo oo ilaa ina guuxaa ay xabaddu sanduuqii la geeyaba laysku dul qabsado halkaa ka gaadh ilaa iyo intaad belli dhiig gelayso ood haddana waqooyi uga soo rogta reer quroo soomaaliyeed baa dega oo xuduudda somalilan ee ugu dheer dega reerkiina muuse wuxuu arkayaa labadan xisbi marka dee anigu taa dhiig baa ku daadanaya haddana imika taa hadduu suuro geli weydo haddaba iga qora ka dhici maysa somalilan doorasho aan la isla oggolayn ragga kale oo dhan waan ka siisanayaa laakiin ninka maxamuud xaashi la yidhaha dee anigu waxaan qabay inuu yahay siyaasi intaa garan karaya ma imikuu muuse biixi u xalaalaynayaa dhiigga dadkiisa iyo doorasho la isku dilo damacu
qofka indhalaan buu ku ridaa waxaan leeyahay anigu 2 goor baan dhimanayaa maxamuud xaasho laakiin adigu 5 goor baad dhimanaysaa haddii aad musabixi ku taageerto doorashada aan la isla ogolayn ugu dambeyntii cali guri haddii hal su'aal ku raaciyo waxaad adiga madaxweynahaanaad maanta dhaliilaysay muuse biixi cabdi ummadda hor keenay u kaambeyn garay u ololeeyey ummaddana u sheegay in uu yahay mujaahid dalka u soo halgamay cabdiraxmaan cirana ku tilmaamay jileec inuu yahay adiga cali guri ahaan waqtiga siyaasadda Soomaaliland isbedelayso maxaa mowqifkaaga siyaasiga bedela waxa bedela shalay muuse biixi muu ahayn madaxweyne muuse biixi oo madaxweynaha miyaa aragteen shalay markaan anigu taageersanaa muuse biixi oo madaxweyne amiyaynu aragnay maya maanta waynu aragnay dee 5 sannadood buu xukumayey 5tii sannadood siduu hogaaminayayna raalli kuma ihi waana madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Soomaaliland soo mara isaga ayaa isburuuf gareeyay inuu yahay marka cabdiraxmaan waa sheegay wixii aanu ku dhaliilaynay ugu weynaa wuxuu ahaa waa ninka dhigta wax loo saarayo maaragtay kolban dhigta wax u saaraya wala waxba hogaamin kari maaye maantana waxaynu leenahay ilaahayow bal mid ciidan wax ka dhageysta oo dhigta wax loo saaro waxay ka oranayaan in habeenaas dhigta wax u saaraysa oo soo takalana u saari maayo labada dhagood bay wada saaray marka cabdiraxmaan runtii ma aqoon oo dagaalkii markii isaga iyo xirsiyada aanu saysanay dagaalkaasaan ku fogaad inkastoo isagu mar qura ila hadal waan bartay imika waa nin lagu aamini kara qarankan oo hogaamin kara oo 20 sannadood diblomaasi ahaa 20 sannadoodna siyaasi ahaayo siyaasadda Soomaaliland aan waxba u dhinayn 40 sannadood waaye aragnimo uu leeyahay muuse bixi 40 ka sannadood 1000 muu baran 1000